اوكي وهران waxaad samaynaysaa start menu aad taabanaysaa start menu markaa ku taabatid kadib waxaad qori kartaa ms config aad qori kartaa waa step koowaad aad micnaha u mari karto okay stepka labaad micnaha haddaa idin tusiyo waxay noqonaysaa waxaad leedahay marka adigoo maxaa leedahay oo micnaha start menu aad taabanin waxaad leedahay marka window r kadib waxaad qoraysaa meesha ms config aad qoraysaa msconfig oo ah ms config kadib waxaad dhehaysaa marka okay aad leedahay okay markaa dhehaysa waxaa kusoo baxaayo dialogan kusoo baxaayo kadib waxaad ka dooranaysaa qaybtan oo qoran tahay boot kadib waxaad dooranaysaa advanced options aad kala ku siinaysaa kadib halkan oo number of process waxaa laga rabaa marka lambar 4 inuu ku dooranta haday ku doornay lambar 4 ka dooro kadib 4 markaa dooratid kadib waxaa leedahay okay kadib waxaa leedahay marka apply aad leedahay kadib waxaad dhehaysaa marka okay markaad dhahayd system configuration wuxuu kusoo saara marka laba option koowaad waxaa waaye start inaad computerka micnaha oo isdamiyo isoo daaro restart waa inuu isdamiyo isoo daaro step koowaad step labaad haddii barnaamijka kaleeta ay kugu socdaan micnaha oo aad rabay inaad computerka aad daminin micnaha ama hadhow camal micnaha aad sidhaysa micnaha research u dirso oo hadda barnaamij hadda aadan ka damin karin computerka oo ku furan yahay waxaa leedahay marka exit without restarting micnaha ka bax asigoo micnaha restart la-aan micnaha restart u dirin marka anad micnaha waxaa waaye maadaama hadda wax aad duubayo waxaan samaynaa marka micnaha exit without restart aan ku dhufanaya micnaha restart ma ugu diraayo okay waa kaya haddii aad rabto micnaha xawaaraha computerka inuu aad u sareeyo waxaad raaci kartaa marka micnaha wadadan raac kadib wixii akhbaar micnaha ama aad kala kulantid kadib micnaha waxay ugu soo celi kartaa qaybta iyo commentiga